بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوادا داودياشينا ku xiran barteena Dr. Paul channel maanta waa maalin Ramadaan ah waxaan idinku bishaareynaa barakada iyo khayrka bishan Ramadaan ay leedahay waxaan idin leenahay barakallah Allahna waafajiyo xamaasha iyo khayrka bishan ay leedahay waxaan maanta ka hadlaynaa hadduu eebedna insha Allah mawduuceena xasaasiga ah ee la xiriira gaaska qofka markuu sooman yahay waxaa la arkaa in culaysaad badan ay ka haystaan xagga gaaska taasoo sababta in qofka mararka qaar uu awoodi waayo inuu soonkiisa maalinkaas si quman oo raaxo leh ama deganaansho ah uu u dhameysto. haddaba markaan ka fiirino dhanka cudurrada keeni kara gaaska xilliga bisha Ramadaan oo inta badan dadka lagu arko inay ka cawdaan gaas xooggan oo haya maalmaha Ramadaanka waxay noqon karaan kow in qofka cunnada xilliga afurka cashada iyo suxuurta uu si saaro taasoo badanaa ay keenta ama dhalisa in lagu arko qofka isagoo dharagsan inuu raashin kala ka daba qaato. tusaalahaan oo kale subaxa hore wuxuu qaadanayaa waxaan yiraahdaa cafan habeenkii markii maqribka la adimo wuxuu qaadanayaa waa sambuus iyo bur ama canjeero iyo waxyaabo la mid ah malawax waxyaabo la mid ah chicken oo kale ama chips waxyaabahaas uu qaadanayaa timirtii biyihiin waa usii dheer markii uu soo dukado salaad maqrib kadib haddana wuxuu u fariisanayaa casho oo cunno fuul ah ayuu qaadanayaa. waxaa laga yaabaa marka cunnada markuu qaato inuusan qofkii sameynin socod iyo lagu baxsi sameynin maxaan ku dhahdaa dhaqdhaqaaq shaqo iyo waxba uusan sameynin oo meeshii uu ku cuno cunnadii oo iskaga joogo iska fadhiya ama iska seexdo isagoo nasiino raadinaya. waxaa soo galaysa haddana xilligii salaadii taraawiixda inuu salaada soo dukado wax laga yaabo uu soo laabto oo haddana dib uu cuno cunno kale dheeri ah oo isagu maarta u arko inuu baahi hayso waa baahi beenaad laakiin ma aha baahi rasmi ah oo taagan markaas. waxaa haddana dhacda in qofkii uu kusoo laabto mar kale isigoo cunnadii cunay jiifkii uu ku laabto oo iska fadhiyo macdaalika mararka qaar waxaa dhacda in qofku la seexdo xitaa isagoo dharag daacanaya inuu la seexdo cunnadii taasoo hadhow dhalinaysa inay timaado xilliga suxuurta isagoo haddana aan cunno u baahnayn kuna qasban yahay inuu suxuurto waayo beriyo dhan ayuu soo mirabaa qofka. waxaa la arkaa marka inay dhacdo in qofkii haddana uu saxuurto cunno kale ka gorgeeyo xisaabta markaasi waxay dhalanaysaa markii salaada subax laga dukado kadib inuu qofku keeno daac qurun fara badan inuu qofku la yimaado sidoo kale maxaan ku rahdaa inay kusoo rogmadaan caloosha waxyaabay ugu jiro raashinkii biyihii waxyaabihii oo dhan inay kusoo rogmaan. waxaa kaloo iyadana dhici karta inuu qofku dareemo maxaan ku rahdaa inuu ka gubto laabta ama barta dhexe ee feeraha inuu ka gubto qofkiina la arko ma ahan marka qof sii wadi kara soonkii ma aha. haddii uu adkaysto dulqaadsana waxaa dhacdaa xilliga afurka inuu keeno dhiig ama markuu xaakoonayo ama candhuuf tufay oo kale inuu dhiig keeno waana sababaha ugu badan ee qofka gaaska ku kiciya. waxaa la gudboon marka qofka gaaska qaba haddana soomaya inuu marka hore iska ilaaliyo cunnada faraha badan ee is saaray inuu waqti u dhaxaysiiyo haddii uu sameyn karana waxyaabaha ugu badan ee gaaska kiciya oo ugu horeysa sambuuska waayo basal badan uu leeyahay inuu ka waagtoobo iska dhaafo. sidoo kale waxyaabaha dhadhanaanka keeni karo liinta iyo cusbada iyo ay ka mid tahay cabitaanada qaar sida isbaandheeska oo kale cananaaska oo kale cambaha oo kale in gaas ku kiciyo uu ogyahay in gaas ku kicinayaan oo iska dhaafo. dadka qaarna waxaaba u qasan caano oo sidaan wada ognahay bahda caafimaadka ay aad uga digeen arrintaas waayo caanaha waxaa ku jira maadada loo yaqaan calciumta waxayna dhalisaa ama ay kor u siyaadisaa soo saarista hydrochloric acid ee caloosha taasoo sababta inuu gaaska qofka sii laba kacleeyo ama uu sii kordho. marka guud ahaan barnaamijkeena tala caafimaad ayaan ugu talagalnay bishan barakeysan ee Ramadaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. qaybtiisa kale insha Allah waxaan uga hadli doonaa daaweynta iyo waxyaabaha laga rabo qofka gaaska qaba inuu iska dhaafo xilliyada la rabo inuu cunnada qaato qaabka cunnada u qaadan lahaa daawooyinka la rabo inuu qaato iyo heerarka ay kala leedahay gaaska qofka maaragtay qaba hadday tahay heerka koowaad ee khafiifka ah qofka maaragtay laga dhihi karo waa iskiis u daawooyin karaa iyo heerka labaad ee la dhihi karo in qofku uu keeno maxaan ku rahdaa xaalad halis ah oo qofku uu keeno dhiig iyo waxyaabo la mid ah. waa Dr. Paul oo idin leh maalin wanaagsan Ramadaan mubaarak.